aan rabaa inaan uga tacsiyo ummadda Soomaaliyeed iyo reerkii iyo qoysaskii ay ka geeriyoodeen 14 qofood oo meeshaas ku geeriyooday jannada xalaha qoraayo waa dad shahiidi runtii ummadda Soomaaliyeed oo xaq garabsan bay ahaayeen waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu tacsiyo safiirkeennii fadhiyay dalka Switzerland الله نحرسته iyo gabar la taliyay ka ahayd ayadana iyo ummadii meesha ku geeriyoodan waxaan rabaa inaan runtii amaano oo bogaadiyo ciidanka amniga Soomaaliyeed ee runtii shalay muujiyay inay yihiin ciidan ummadda Soomaaliyeed ku faani karto dhacdooyinkii lamid ahaa ee ka dhacay dalalka kale ee wadanka aan Soomaaliya ahayn waxay qaadatay maalmo in la soo afshiro waqtiga dheeraaday oo ilaa isaa ka soo gaaray ما يسنهن إلا سؤال جروي لكن واحد أمد إلا بدوادي ساق سنتين بقى أمد إلا يكون تنقبضا أي بدوادين كانوا صارين هوتيلك إن الحسين يصورتي إنك حاجتك يصور هوتيلك أهميتي إلى حيين وحي حيين أمد داس أم حق لفسن أنتي إكلا ينكران إلا لاير لكن إنك أمني يودي فرصة داس هنتي نكوهر تجي inay ku talaabsadaan wixii ay ku soo talagaleen inay umadaas ku maadaan ogsoontiin dowladda Soomaaliyeed xukuumadda Soomaaliyeed waxay runtii xoreysay degmooyin badan oo gacanta ku hayeen maadaama ay aan kaga guuleysanayna dagaalkii guud iyo dagaalkii lagu xoreeyay degmooyinka iyo gobollada dalka waxa ay marka kan u jeesteen inay gumaadaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed aan xog garabsan